meesha iskugu timid waxgaradka dhalinyarada haweenka gabdhaha Soomaaliyeed dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta diinta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. walaalayaal sidaan ogsoonahay dhamaanteen waxaan nahay ummad Soomaaliyeed, waxaanu ka soo jeednaa hal guri, waxaanu nahay isku diin. waxaan horta marka ugu horeeya aad uga xunahay oo aan u tacsiyanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed musiibada ku absatay 20 sano jirsatay ama ka badan. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in maanta laga baxay dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed 20 sano haystay ee ahaa qabyaaladda iyo waxyaabaha xun oo dhamaan iyo in la taageero qowqolayaashii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyanayaa ilaahay ha u naxariisto wasiirkii shalay aan aaminsanahay ama iska cadahaba in gacan ka xaq daran ay dishay wasiirkii arrimaha gudaha Cabdishakuur. midda labaad waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa aniga oo ku hadlaya magaca dhalinyarada ku nool dalka Masar ee Soomaalida. waxaan mar labaad cambaareynayaa shirkii Gambaala go'aamadii ka soo baxay, go'aamadaas oo ah kuwa aan innaba u cuntamin ummadda Soomaaliyeed ama dhibaato weyn ku noqonaya ummadda Soomaaliyeed. waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in maanta laga baxay wixii la oran jiray tribalismka, in maanta laga baxay wixii la oran jiray corruptionka oo musuqmaasuqa, in ummadda Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay dawladnimo, in ummadda Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay midnimo. ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan Ra'iisul Wasaare Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo run ahaantii lagu tilmaamo ninkii qarniga ama he is the hero of the hero man. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ama aan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay sii wadaan mudaaharaadyada noocan oo kala oo ay ku kicinayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee gudaha joogto. waxaan u sheegayaa inay la dagaalamaan musuqmaasuqa, inay la dagaalamaan qabyaaladda, inay la dagaalamaan ninjeclaysiga, inay la dagaalamaan wasiir hebel oo beel hebel kursigaas u fadhiya duusan helin beesheenu ma taageersano, inay la dagaalamaan waxa lagu tilmaamo maamul goboleedyada oo dalka lagu kala goonayo oo ay wataan nimanka jooga Asmara, Ethiopia, Kampala oo aan doonayn in Soomaaliya dawlad ka dhalato. waxa ay doonayaan waxa weeye Soomaaliya in loo kala qubo 10 gobol oo mid walba goonidiisa wax loogu sheego, mid walba goonidiisa dhinac loola baxo. Soomaaliya in badeedii la xaalufiyo, in burcad badeed lagu abuuro, in Soomaaliya laga dhigo meel qashinka lagu qabo, in ubadkii Soomaaliyeed lagala dagaalamo waxbarashada, caafimaadka, wax walba oo horumar in ubadka Soomaaliyeed lagu ababiyo inay qoryo qaataan oo ay dagaalamaan. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaya ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Masar oo maanta run ahaantii halkan ka cabiray fikirkooda ku aadan oo ay ku taageerayaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan leeyahay Ra'iisul Wasaare Farmaajo ha noolaado, mahiiga ha dhaco, mahiiga dalka iskama laha, mahiiga Tansaaniya ku laabto, mahiiga ha dhaco. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed hay'adda qaramada midoobay oo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya inuusan ka shaqayn qof Soomaaliya, waxa ay ka shaqeeyaan ay yihiin dad ajaaniba. ma jirto mana dhacdo wadan inay saas noqoto. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inay qabyaaladda ka fogaadaan. waxaan u sheegayaa in ummadda Soomaaliyeed ay ka fogaadaan waxa la dhaawlaan. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in caasimadii dalka Soomaaliya ay tahay magaalada Muqdisho, in la iskugu imaan doono magaalada Muqdisho. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed wax wada qabsi. waxaan aad iyo aad halkan uga cabirayaa fikirkayga ku aadan inaan dhinac taaganahay Ra'iisul Wasaare Farmaajo, aan diyaar u ahay inaan ku dhinto magaciisa. mar labaad waxaan u tacsiyanayaa intii ummadda Soomaaliyeed u shaqeynaysa ama wasiir ha noqdaan ama xil kale ha hayaan oo gacan ka xaq daran ay dishay. waxaan leeyahay waxa diinta ku gabanayo ee ummadda Soomaaliyeed looga soo talinayo Taliban iyo meel daran iyo Pakistan oo wadamadooda amni ka jiro in Ilaahay inaga qabto, cadowga Ilaahay inaga qabto. Soomaaliya ha noolaato, Farmaajo ha noolaado. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.